kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij walaadkeena waxaa kamid ah kadib markii uu burburay wadahadalkii Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo u dhaqaaqay in uu dhiso New Jubbaland gobolka Gadana uu haatan wixii ka dambeeya aga dhigan doono. wadahadalka burburay sababtiisa ayaa waxaa lagu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud markii horeba uusan daacad ahayn. faahfaahin iyo falanqeyn ayaan arrintaasi idinkaga haynaa. waxaad kaloo barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaa dhaliyey in labada madaxweyne ay isinkaraan midba midka kale maqaamkiisa u diido. la taliya sare oo ka tirsan xafiiska Xamse Cabdi Barre oo u soo jeediyay arrin la yaab leh oo ka dhan ah Axmed Madoobe. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo doonaysa in ay abaal mariso askarigii hor istaagay argagixisadii doonaysay in filla Soomaaliya ay weerarto kadibna ku qasbay inay u weecdaan dhankaasi godka Jircow. waxaad kaloo barnaamijkeena ku daawan doontaan labadii ugu waaweyneed daalimiinta adduunka Trump iyo Netanyahu oo iskhilaafay isla markaana isfahmi waayay iyo Trump oo erayo culus oo ka dhan ah ninka lagu magacaabo Netanyahu afkiisa ay kasoo yeereen. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan ee kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan. aynu ku bilaabano madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa la sheegayaa in wacad uu ku maray isla markaana hoosta uu ka xariiqay in uu doonayo in Jubbaland cusub uu ka dhiso gobolka Gado. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu aad uga carooday in Axmed Madoobe uu si toos ah uga madax adeegay iskana diiday dhammaan dalabyadii ka imaanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xasan ayaa markii uu u safrayay magaalada Kismaayo waxa uu aaminsanay in Axmed Madoobe jilcay isla markaana qodobada qaarkood uu qaadan doono oo ugu horeyso in doorashadiisu ka laabto oo qabto doorasho kale oo la isla ogol yahay. xasan ayaa maanta dhexdhexaadiyaasha saaka marka uu soo baxayay waxa uu sheegay in mar kale dib loo kulmi doono, laakiin arrintan ayaa waxaa la sheegayaa in ay tahay afgobaasi in la rabay in lagu kala dhaqaaqo, laakiin ay ka go-an tahay inaan mar dambe Axmed Madoobe oo sidaasi u dhaqmaya ama hadafkiisu sidaasi yahay aanu ugu soo laaban kursiga wadahadalka. Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ka baxayay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in uu la kulmay madax ka socota gobolka Gado iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo mucaarad toos ku ahaa Axmed Madoobe. waxa uu sheegay haddii Axmed Madoobe diido qodobada uu wato Xasan Sheekh Maxamuud in soo laabashadiisa isla bil gudaheed lagu dhisi doono maamul cusub oo loogu magacdari doono Jubbaland cusub oo wixii hadda ka dambeeya dowladdu ay la macaamili doonto isla markaana ay siin doonto sharfida iyo maamulista iyo sidoo kale maqaamka uu leeyahay maamulka Jubbaland. dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in Axmed Madoobe uu bilaabay fowdo ah in uu xusi diido maqaamkiisa madaxweynenimo, taas oo filla Soomaaliya lagu soo qoray in Axmed Madoobe gebi ahaantiisa ay ka gaabsadeen dowladda Soomaaliya inay la kulmeen isla markaana madaxweyne ay u aqoonsadaan. halka dhigiisa Axmed Madoobe isaga oo ka jawaabaya arrintaasi isagana uu soo qaadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. arrintan ayaa waxaa loo arkayaa inay yihiin labada madaxweyne kuwa aad iyo aad u kala fog isla markaana ay adag tahay in la isku soo dhaweeyo. madaxda ka socotay wadamada Itoobiya iyo Kenya sirdoonkooda ayaa waxay ka shaqeynayeen in arrintani ay mar uun dhaqan gasho, waxaana kasii dambeeya Imaaraadka Carabta, laakiin waxaa muuqata in hawshaasi lagu hungoobay isla markaana ay ka shaqeyn weysay dhanka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. markana magaalada Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa abaal marinaysa askarigii madaxtooyada Soomaaliya ka celiyay kooxda argagixisada ah ee doonaysay in ay weerar ku qaado. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa uu ku dhawaaqay in askarigaasi al-shabaab hor istaagay ee celiyay abaalmarin ballaaran la siin doono. waxaan ballan qaadaynaa in dowladdu ay abaalmarin siin doonto askarigii khawaarijta ka celiyey in ay u soo gudbaan dhanka wadada madaxtooyada. askariga waxa uu la mid ahaa ama lala abaalmarin doonaa askarta kale ee la joogtay. sidoo kale waxaa weerarka godka Jircow ee sabtidii ka dhacay lagu tilmaamay mid la mid ahaa kuwa ka dhaca caalamka, sidaasi daraadeedna aysan ahayn in la baamuuniyo. weerarka godka Jircow ku qaaday khawaarijta waxa uu la mid yahay weerarada argagixiso ee dunida ka dhaca. Muqdisho waa amni sanad gudaheed hal qarax ayaa ka dhacay, ayuu yiri wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga oo maanta la hadlayay saxaafadda. waxa uuna sheegay in arrintani ay ka shaqeynayaan inaysan mar dambe soo laaban. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa amartay in la adkeeyo xakameynta gaadiidka ciidamada. waxa ayna wasaaradda amniga gudaha ku wargelisay ciidanka amniga ee jooga baraha hubinta iyo kontaroolada in si buuxda loo hubiyo gaari kasta xitaa haddii uu saaran yahay madaxda u sarreysa ee dalka.
tan haddii la dhaqan geliyo ayaa waxa ay si toosa saameyn ugu yeelan doontaa ciidamada ku socda gaadiidka buufsan, maadaama hore baaritaano baraha hubinta aan lagu samayn jirin ciidamadaasi, waana mid fududeysay in kooxda argagixisada ah ay soo gasho gudaha magaalada muqdisho oo ay kula dagaalamaan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya. La taliye sare oo ka tirsan xafiiska Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu soo jeediyey talo ka dhan ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. La taliyaha ra-iisul wasaaraha ninka lagu magacaabo Naasir Ciga ayaa soo jeedin cusub u sameeyey kadib wadahadaladii natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yeeshay kan Jubbaland. La taliyaha ayaa yidhi, waxaan qabaa inaan dib dambe loogu laaban wadahadalka lana dardargeliyo maamul cusub ee New Jubbaland la dhiso, taas oo dowladda federaalk ee Soomaaliya inta badan iyadu ay ku fakarayso in ay samayso. Qoraal kooban oo Villa Soomaaliya soo saartay laguna dhowray magaca Axmed Madoobe ayaa waxaa laga dheehanayay in arrintani ay suurtagal tahay. Wadahadaladii soo socday waxaa lagu sameeyey horumar, iyadoona arrintaasi dib loogu ballamay in laga sii shaqeeyo mar kalena hore lasii wado ayaa qoraalka lagu soo koobay. Dowladda Jubbaland ayaa iyaduna dhankeeda ka hadashay, waxayna sheegtay in mar walba ay diyaar u tahay in wadahadalo lagu dhameeyo xaaladaha isfahmi xumo ee u dhexeeya, laakiin dowladda Soomaaliya iyo xafiisyada ugu sarreeya dalka ayaa looga ololeynaya islamarkaana looga luubin gareynayaa in aan dib loogu laaban wadahadalka Axmed Madoobe ee la dhiso Jubbaland cusub, taas oo la aaminsan yahay in Axmed Madoobe xaalad halis ah ay ku qasbi karto ama ay samayn karto in uusan dowladda federaalk ee Soomaaliya mar dambe la tartamin. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday siyaasiyiin mucaarada oo kasoo horjeeda Hirshabelle ayaa waxa ay gelaysaa waqtigeedii ugu dambeeyey, waxaana la qorsheynayaa in halkaasi doorasho ay ka dhacdo. Guudlaawe ayaa waxa uu ka shaqeynayaa in aysan dadkaasi la tartamin ama uu sumcad xumeeyo. Waxa uu yidhi, waxaa laga soo tegay xilligii qoriga, waxaana lagu jiraa haddii waqtigii qarinka wax lagu qaadan lahaa, laakiin haatan madax u tartamaysa maamul goboleedka Hirshabelle ayaa ayagu ka shaqeynaya in qori la qaato oo dadka ay isku diraan, ayuu yidhi ninkaasi oo la hadlayay ninka ugu madaxda mucaaradka ah ee u tartamaysa xilka madaxweynenimada ee maamulka Hirshabelle oo ugu horeeyo 30 milyan haysta Cabdulaahi Maxamed Nuur, ninka hoteelka ugu qaalisan ee magaalada Muqdisho kule ee loo yaqaano Elite oo ah ninka ugu weyn ee la tartami doona.